Mama. Baba. Mama. Baba. Mama. إيه قبل حواي ورياضة 25 people 23 وجدان 19 كرباشة بلاونا ما كرباشة لكن لا ودان أنا وكح كرباشة أي أركتان إلا الله ما يدير إلا الله لا waxaan idin sheegayaa hadii ilaahay ku idma hayo horta fariin baan u dirayaa reer Somaliland oo islaamaya waxa Facebook iyo social media ka socdo dhan ayaan wax wanaagsan ahayn Facebook aad buu u qasan yahay way walaaqan tahay arrintu xaaladdu way walaaqan tahay laakiin warigeed bay walaaqnayd oo markii wax yar dhacaan ay saas u walaaqmi jireen dib ma lahan dal casar idinka nooga xog ogaalsan oo idin la jooga dawladda xirtay dad badan oo halkan ku jira ama social media ka nacnaclan anigu waa uga xog roonahay marka waxaan idin leeyahay xaaladda la dejiyo odagaas wax ka ba'aya malaha insha Allah soo nabad qabana waa la soo diraa saasan rajaynayaa wayna ahaanaysaa insha Allah waxaan kaloo idin sheegayaa oo rabaa inaan baaqo diro reer Somaliland waxa la yiri Facebook ayaa ma aragtay dawladda inta loo geeyo wax la soo ma aragtay print gareeya la yiraahdo qofkan ama dadku haduu qofku magac leeyahay ama uu magac lahayn ba ama wadanka gudihiisa jooga ama dibadda jooga ama magac leeyahay adigu qof kasto Soomaaliya Facebook wuxuu ku soo qoraa lagu qabsadaa waxaasan maqlaayay maanta waxaasan maanta maqlaayay marka waxa waaye waxaan rabaa inaan u sheego Somaliland horta hore inaan isdifaacana kama marnay Facebook badan oo farxiyo ka bayro ku qorantaa jira marka hadii nacnac lagu soo qoro iyo cay ila qabiilo badan baa lagu caayay Soomaalida lagu caayay lagu aflagaadeeyo ana iska caadi oo fanaan kasta lagu sameeyaa wax kaliya ii gaar ma aha marka anigu tayada hadan ka hadlo walaalayaal dad aragtaan Facebook farxiyo ka bayro ku qorantahay oo nacnac ay ka socoto ama qabiilo lagu caaynayo ama Somaliland wax looga sheegayo anigu kan hadda aan ka hadlaayaan leeyahay horta taas ogaada Facebook hadda aan ka hadlaayo Facebook aan lahayn malihi aan ahayn malihi page aan ahayn malihi page-na ma malihi ba marka waxa weeyaan la isbaxrayn saaxiibayaal oo dawladana iska baarto iska saxdo haday lacag la aragto ma aragtay dad iska caytamay Facebook waxa waaye ma aha wax oo garantida ama cadayn ah Facebook siisa ma noqdo hadaadan sida dal casar wadanka inta tagto aadan waxaad rabto sheegin taas waa gaar moogto meesha dadka dhex istaagto aad waxa rabto sheegto ama aad Facebook iska soo duubto muuqaal taas cadayn waa lagu hayaa waana lagu karbaasha waliba waxa aniga hadan Hargeysa taga aan wax ka sheego reer Somaliland hal ay xirano haddaan fiiriyo soo duuban idin caayo ama idin aflagaadeena xira taas waa garaa u leedin laakiin waxyaabaha Facebook qof Facebook wax ku soo qoro aan la xiraaya iyo haday dacaayad tahayna waxa waaye waa khalad ay ka raali ahaada haday jirtana ka fiirsada khaladaadka waa iska dhaca ma aragto waa laga yaabaa in dad badan lagu khaldamo marka waxa waaye waxyaabaha khaldan oo dhan inay dawladdu saxdan jeclaan lahaa Somaliland waa meesha kaliya ee Soomaaliya joogto ee maanta vacation qof Soomaaliya u aadi karo oo ku raaxaysan karo walaalayaal oo iftiinkaas ma aragtay hanaga qashqashaadina iftiinkaas meesha ka soo baxay ee dadkaas walaalaheena oo ma aragtay nabadgelyada haysta oo kala dambeynta haysta oo dab casar fiidiyoosha aragteen oo soo duubayay ani aadan ugu farxay aadan uga helay shakhsiyan wallahi beenan idin sheegaynin waaba ka masayra bas u baashaalayeen oo markii dambe odagii waa celin weyn ma ahane waa kari weyn odaga oo ila afaadan lahayn ma aamusi kartid oo waa aamusi kari weyn ma ahane wallahi uu baashaalayay idinka kulligiina waa daawanayseen marka waxa waaye dadka yaan la dhaleecayn qabiilada yaan la cayn xamar naftirkeeda wax ka taagan waa aragteen dad baa Facebook soo galaya dhahay qabiil hebelan matala iyo dad baana la kalaayay dad baana la ka xiray oo qabiilo caynayo oo dawladda caynayo oo dadna isku diraan raba oo dagaal sokeeyay inay abaabulaan raba dad baa dana kala leh dad baa bukaan socda oo guriyo ku xiran oo qurbaha jooga oo qurun ah haddaan sheegaa dad xun baa jooga dadka gudaha iyo wadankii joogana noocaas ma aha say u badan yihiin wadanka dadka jooga waa dad iska nool oo baashaara oo nabadgelyo iyo u baahan nolol balaayo waxay ka dhacday dadkan qurbaha ka tagay wada bukaan socodka oo xanuunsanaya marka inta samaha jecel inta aqliga saaxiibka ah yaanan dad cidna yaanan qabiil lagu kicin yaanan dadka la dhibaataynin dadku waa walaalo Somaliland waa aaminsanahay aniga Somaliland waa aaminsanahay haddaan dhaha habeenan dhaha haran dhaha macnaheedu ma aha farxiyo Somaliland oo socotaa waa u naagaynaysa wax naagays la yiraahdo ma jiraan dadka yaa la jaayfeen dadka yaan la caayin horumarkooda ha lagu farxo hana lagu daydano by the way idinkuba ma ogolaateen maanta intuu qof idin yimaado inuu soo doono idinka yeelo in kastoo dal casar uusan maskaxdiisu aysan fiicnayn in kastoo xanuunsanayo in kastoo waalayo kulligiin isku raacdeen haddana waxa waaye dadka meesha jooga xoolo ma aha waa dad bilaadan oo wax fahmaya inuu xanuunsanayo ayaguba way fahmeen wayna fahamsan yihiin wixii khalad dhacayna in la saxayaan jecelahay
dadku waa walaalo waa wada ehel Soomaali waxba isku wada tahay waa ogtiin dadka yaana loo gafin cayda iyo aflagaadada iyo edabdarrada hal la joojiyaan leeyahay dabcasarna uu soo samatabaxaya waana la soo diraa asoo wiliba soo nastay wixii khaldamayna way saxayaan dadku waa dad Soomaaliyeed oo walaalaheena xasarada hal la joojiyo nacnac badana la soo qori doonaa waa ogahay kaba yar Soomaaliland u socotaa waa dagaa hadaan rabo waa dagaa aniga laandheeraan ahay meel kastoon tagana laandheeranka ahaanaano ma fahamteen marka waxa waaye runaa la sheegaa inta maqasheen ama dada wax laga sheegaa run sheegu noocaas ma ahandee markay wax qaldamaan dadka waxaana qaldanay hal saxal la yiraahdaa laakiin lama caytamo haday xataa wax qaldamaan waxba la qaldaya hal saxal la yiraahdaa oo codsiyaa la diraa laakiin ina adoo Mareykan jooga ama Yurub joogta ay soo nacnaclayso qabiil isku soofayso waa khalad Somaliland aad ka sheekaynaysaan haaf warre Soomaaliya dadka jooga oo ka ganacsanayo oo ku nool oo ku raaxaysanayo oo xaqiiqo ah marka walaalayaal Ilaahay ka baqa baashaala iska raaxaysta Somaliland waa aragteen sida loogu raaxaysanayo baashaalka ka jiro iska baashaalano ya iska baashaala xamarna balaayada aad u siraadinaysaan iyo saacadan dawlad la rido iyo saacadan dagaal sokeeyo oo qabiilo Soomaaliya isku marta waxaad ka dhaxasheen waa ogtihiin hadii oo xinjiro faraha lagu la jiray ay ma aragtay ay tahay ay xal tahayna hadii xinjirahaas ay xamar faraha kula jiraysaano hadaan la joojin waxyaabaha la wado waa idin salaamaya inta samaha jecel kor Allah ka dhigo meel kasta oo joogtaan Soomaali inta samaha jecel Allah hadlay anigu inta xumaanta jecel horaan idinku sheegay saaxiibo ma nihin inta xumaanta jecel saaxiibo ma nihin waxna isuma keenna gelin always inta xumaanta jecel aniga saaxiib ma nihin always waxaan saaxiibanahay inta samaha jecel kor Allah ka dhigo qabiilada sheekh iyo shariif leh oo dad wanaagsan leh oo dad fiican leh oo ummad Ilaahay oo dhan ay ku jirto oo aan anagu naqaano oo aan ma aragtaa asxaab badan aan ku leeyahay Somaliland saaxiib labadii habeen oo ugu dambeysay dabcasar telefoonkaasaan ku jiray Somaliland dad joogan la hadlaayay dadkii wax ka soo dhaweeyaan la hadlaayay oo waliba ku sii adkaynayo odagu ma fayooba wargaliya dawladda ha loo sheego odagu xanuunsanaya ha loo sheego 100 mar ay la kaxeeyo la soo celiyay dabcasar hadaad ogtiin hadii kale 100 mar baa inta la kaxeeyay saldhiga la geeyay la soo celiyo aamus liirada aamusi waay marka walaalayaal dadkayaan laga gardarnaan waa idin salaamaya inta samaha jecel kor Allah ka dhigo reer Somaliland waa idin salaamaya meel kasto joogtaan hadda inta bukaan socodka reer Somaliland naftirkeeda in badan oo bukaan socodka ku jirtay intaas bukaan socodkaan reer Soomaaliya waxa u bixinina idinka bukaan socod kale idinku jira reer Somaliland bukaan socod ku jira xanuunsanaya oo ka soo dhex qaylinaya Yurub qolal ku xiran oo dad iyo qabiil la caynaya marka inta xanuunsan yaan la xisaabin inta samaha jecel aqliga u saaxiibka ee Soomaali waxay isu tahay taqaana ha lagu xisaabtamo waa idin salaamaya love you guys inta samaha jecel kor Allah ka dhigo free ka bayre war anigu weligeeyaan free ahaanaya saaxiib khayr idin dhaaf waxay soo qorayaan arag waryaada husbaa leedin yiri inta xumaanta jecel oo dhan inta samaha jecel kor Allah ka dhigo love you guys waa idin salaamaya insha Allah khayr baan rajaynaynaa iyo in ma aragtay wax lagu farxo